daawadayaal waxaa waqti xaadirkan khadka teleefanka ku jira gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid ee dalka Mareykanka mudane Cabdiraxmaan Cumar ugu horreyn mudane ku soo dhawow telefishinka wad la socotaa xaalka waqti xaadirkan wadanka doorasho laga soo noqday mucaaradkii ayaa ku guuleystay shirgudoonka golaha iyo bal qaybo kamid ah gobolada dalka maayiradoodii hadda mucaaradku waxay isku diyaarinayaan xukuumaduba doorashadii madaxtooyada bal hadda isbedelada dalka ka socda sideed u aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد مركب الرئيسال كان واحد كسلام ياسر أحمد هو رئيس كان إيجا قاضي يتي في قصاب waxaan leeyahay TV-ga saab waa TV-ga kaliya ee inta badan aanu ka daawano haddii aan nahay dadweynaha dibadda degan intaa kadib marxaladan uu maanta dalku marayo waa marxalad aad u wanaagsan marka hore waxaana rabaa inaan sababeeyo waxyaabo badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu qabtay doorasho aan hore loo qaban oo isku sidkanayd waxa ka soo baxay dad tayo leh oo qiimo badan leh waxa ku guuleystay labadii xisbi mucaarid baa aqlabiyadii doorashooyinka isku sidkana ee uu qabtay ku soo baxay runtiina aad baan ugu hambaleynayaa labada xisbi sida isku bahaysteen aqlabiyadana ay u heleen madaxweynuhuna waa ku amaanan yahay inuu doorashada qabto dalka marxaladan uu maanta marayo anigu dhowr shay baan ka taaban lahaa runtii waxa ka taagan nimada ayaa xisbigan ucud ku weyn xisbigii kulmiye uu ka gaabiyey xukuumaddu inay dalka dibaddiisa xidhiidha la yeelato ay ka furato xafiisyo sidaan annagu uga furannay waa xafiiskii shanaad ee dalka dibaddiisa ka furan hadday noqoto Yurub iyo hadday Mareykan noqotoba Kanadana maalmaha soo socda ayaan socdaal ku tegayaa oo aan rabaa inaan ka soo furo iyadana marka xisbiga ucud maanta waa xisbiga kaliya ee loo hanweeyahay ee ummaddu doonayso inay la jaan qaado ugu dambeyntii sanad guuradii 20aad ee xisbiga mucaaradka ucid asaaskiisa ayaa maalin dhow loo dabaaldegi doonaa halkan iyaad uga hambalyeynaysaa mudane ugu dambeyntii waxaan halkan ka hambalyeynayaa xisbiga ucud 20 guuradiisa oo maanta la qaban doono oo dhawaan la qaban doono oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba la iskugu iman doono meesha lagu qabanayo goobta lagu qabanayo shirweynihii xisbiguna isaguna uu daba socdaa runtiina waxa arrinkaasi shirweynahaasi waxaa la fili karayaa inuu xisbigu tayadiisu ay ku sii weynaato oo dad qiimo badan leh oo mutacallimiina oo waayaaragiina oo dhalinyaro oo dalkan ay kale inay ka soo bixi doonaan taas oo aanu ka shaqaynaynay muddadan ugu dambeysay inaanu sii diyaar garowno doorashadaasi
oo ay noqonaysana in xisbiga ucud uu ku guulaysan doono doorashada soo socota. aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. mar labaad halkan waxaan ka salaamayaa guddoomiyaha xisbiga faysal cali xuseen. intaa kadib waxaan kaloon halkan ka salaamayaa hambalyana uga dirayaa dhammaan xisbiga ucud dalkiisa inta joogta dalka iyo inta dibadda joogtaba. dhammaantood waxaan leeyahay sanad guuro wacan, hambalyo wabilaahi tawfiiq.